marka koowaad ilaahay baa leh hadda subxaana wa tacaala mar labaadkana intii soo qaban qaabisay aynu wada hadalno oo aynu maskaxda toojinno oo aynu diskas garayno oo mindsetkeennu isku mid ha noqdo waa barnaamijyada caynkan oo kale ah waa meelaha wax laga taro waa meelaha runtii wax weyn tara waxaan ku celinayaa arrintii madaxweynuhu ka hadlay shalay mujtamaceenna 50% aqoon iyo ilaahay siiyey baa iyana jira halkaasi gaabkaasi weli waa jira waxaan jecelahay taasina in lagu ilaaliyo caadiyanba haweenka iyo waxa la yidhahdo regulatoryga cidna ma jecla because wuxuu ku leeyahay behave garee samo dhaqan cadaalad muuji transparency muuji marka inta badan waxaad moodaa haweenka iyo regulatorygaba waxaad moodaa in la yar mataqaanaa laga boqo marka waxaan leenahay saaxadda ha loo ogolaado wax alla wixii maanta laga hadlayey sector kasta la soo qaado caqabadda koowaad waxay ahaayeen shuruucda salaad la xidhanayo oo aan weyse lahayni miyay ansaxaysaa ma ansaxayso waddanka regulatorygu sector kasta ahaadee wuxuu ugu jiraa haddaad bilaa weyse ku dhaqaaqdo wax alla waxaad wadaa hal bacad lagu lisay waxaan soo diyaarinay kolley sheekees wasiirka iyo annaguba tamarta iyo macdantu waa kuwa kaalmo muhiim ah hadlayo khaasatan energy-ga wixii policy extraction iyo horumarka wasiirkiiba aan ku ixtiraamiyo u jooga bal sectorka electricity-ga oo ah runtii energy-ga qaybta ugu muhiimsan wax kastoo la soo saaro wixii wax dhaqaajinayay qofka insaanka ah waxa dhaqaajiya waa ruuxda ilaahay subxaana wa tacaala ruux weynoo abuuray ruuxda lama arko laakiin way dhaqaaq waan soconnaa waynu hadlaynaa energy-guna electricity-guna waa la mid waa waxa wax dhaqaajinaya marka wax soo saarkeennu haddaynu ku fakirno halkan aan runtii ku soo muujiyey ilaa 18th century-gii laga soo bilaabo dee dadku beeraha iyo wax soo saarkii biyaha gacantaynu ku qodaynay wax badan may tarayn laakiin markii la soo saaray cagafta ee baatarigii lagu xidhay ignitionka energy-ga lagu xidhay badaalku wuu farabatay productionkii wax soo saarku markaa xoogay baa la helay si markaa hadda loo helo electricity energy kale warshadaynta bilaabmaysa marka muftaaxa shayga u ah dhaqaalaha wax walba nooc ha ahaadee haddii aanaynu fahmin sectorka energy-gu inuu yahay muftaaxa shay walba uu ku bilaabmayo weli waxaynu haynaa bacaad oo maynu fahmin waxaan jeclaan lahaa in halka la geliyo daawataan maysa suurtogelin waxa u asala waan jecelahay waddankeena maanta guri kasta iyo shay kasta microfonka ku hadlayo kabaradaan aynu shidayno laydhkaa baxaya isgaarsiinta halkaa ka socota haddii aanu laydh ku jirin tallaabo qaadmayno marka waa muftaaxa hagaha horumarka haddii markaa bagi miyay kuu shaqaynaya isgaarsiin miyay kuu shaqaynaysaa awliyaadka qarankani weli ma fahamsanaa awliyaadka iyo sida wax loo soo kala horeynayo waa sax gacanta waxaad ku ortaa laakiin intay leekaanaysaa ma gaadhaysid halkaynu doonayno ilaa aynu fahamno waxyaabaaynu ka hadlayno waxaan ururin lahaa maadaama ay goordama tahay waan soo ururinayaa waxa ugu muhiimsani waa shuruucdii waddanka waa regulatory framework every sector gasho ilaa halkaa aynu culays saaro muran siyaasaed baa laga baxayaa muran business baa laga baxayaa waxaa imanaya markaa inay shuruucdii inoo dhisanto waxaan leeyahay aan hambalyanayaa forumkan sidaa wasiir sacad u sheegay in la joogteeyo xubnaha ka maqan ee aqoonta aan lahaydna la soo ururiyo aynu ka soo saarro waxyaabo mataqaana daraasad rasmi ah oo ku baysgaraysan wax kale ma aha waxaynu u baahan nahay dhammaan xubnaha jidhkaygu way wada shaqeeyaan mid ka mid hadday fadhido midna mid kala mayso laakiin way kala horeeyaan sida hawada oxygentu u tahay muftaax ma la-aan karaysa muddo gaaban cuntada muddo ka maqlan karsa soomi karaysaa biyahana waa xoogay laakiin hawadii iyo neefti weeyaan marka waxaynu u baahan nahay uun inaynu awliyaadkii sectorskaynu ka hadlayno iyo siday u kala horeeyaan aynu isla fahamno marka la isla fahmo way dhib yaraanaysaayo halkeen laga bilaabaybanaysaa markaasaa shuruucdiina ay u baahan tahay muran haddaad maqasho la isku murmo oo murug la isku qabsado gaabkaasi waxa uu ka jiraa waa xagga sharciga waddankeennu xagga marka lagu dabaqayo siyaasadda iyo cilmiga iyo aqoonta 3 dowladood baynu leenahay 2 way ku soo biireen shareecadii islaamka ku dhaqannaa inta badan muran kama yimaado qaala allah wa qaala rasuul marka la yidhaahdo shayga waa laga hadhaa laakiin maxaa jira haddaba xeerkii dhaqanku nima siduu doon u jeedaya hadal waa margoo kala weyn kala jiidanaynaa waa in markaa la fadhiisiyaa la sugaa
xeerkii madaniga ahaa ee asagana waxaa jiray dee wixii aan kitaabka lagu sheegin traffic lightka in laga cross gareeyo laga joogaa isagana wuxuu ku base gareeyaa civil fam marka haddii la define gareeyo oo shuruucdii marka xeerkii la dejiyo marka tusaale ahaan dee waxaa jira xeerkii tamarta commissionkii baa ka dhashay wasaaraddii iyo qaranka waxay diyaariyeen siyaasaddii marka aan u ka dhashay waxaa imanaya markaa in sectorkii la regulate gareeyo oo standard loo sameeyo regulation isugu ilaaliyo dabeetana la yidhaahdo tacriiftu waa intaa waxaasna wax ku iibin karaysaa public asaasa ka sii gaarsanaysaa safe waynu ka ahaado waa in isagana lagu maalgeliya lagu ilaaliyaa inaan meeshii ka bixin maxaa markaa loo baahan yahay halkan waxaa ka dhalanaya haddana inspectionkii waa in markaa dib asagii haddana scrutiny dib loogu sameeya lagu ilaaliya halkaa waxaa ka dhalanaya markaa in la helo tamar jaban oo macquul oo la hayid karayo quality servicekeenu u baahnay adeegaynu u baahnay oo aanu inaga damayn microfonka iyo wixii aynoo nimi waxaa weeye marka human resource-kaaga markaa noqonaya qiimo tuulkii iyo adeegii iyo shuruucdii iyo nidaamkii uu ku dhaqmayey ayaa markaa suurtagelinaya waa baxad oo laga bixi maayo laakiin waxaan jecel lahay inaynu insha allahu tacaala kulamada caynkaasi ee la badiyo ay ka soo baxaan priorities sektorada ugu muhiimsan iyo sidoo kale horeeyaan wabilaahi towfiiq waxaan uga mahadnaqayaa dhalinyarada iyo guud ahaan intii soo qaban qaabsay waad mahadsan salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh